waxa uu ahaa xasuuq wadareed loo geystay haldoorkii waxgaradkii koonfur galbeed Soomaaliya waxaana ay ka mid tahay maalmaha madow ee wili aan ka tirmin xusuusta reer koonfur galbeed 13 Diseembar 2018 magaalada Baydhabo ayaa gashay jahwareer amni iyo mid siyaasadeed kadib markii la xiray hogaamiyihii xisbiga amni iyo cadaalad Sheekh Mukhtaar Roobow Cali oo ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayay madaxtinimada koonfur galbeed Soomaaliya shirqool ayaa loo maleegay oo ay ka shaqeeyeen rag ka tirsanaa koonfur galbeed ayaana sababay in reer koonfur galbeed Soomaaliya ay waayaan xubno haldoor ahaa annaga hal shay idin sheegay annaga mudaharaad aan naloo soo sheegin oo aan la dhihin banaanbax nabadeed jir waa roob doonaynaaba maya wax wanaagsan aan taageerayna wax xun hadaa taageeraysid oo noo soo sheegin oo aad soo baxdo xabadaan dabada ka galnay sharcigaana noo banaynay inaan ku dilin hadan inkastoo Generaal Mahad lagu wargeliyay in wiilka qaba gabadhiisa uu yahay musharax madaxweyne taas oo keentay inuu adeegsado hadal xanaf leh hadana shacabka koonfur galbeed Soomaaliya arintaasi si adag ayay uga falceliyeen dawladda oo dhaha ma in sheegane in dhibaatiyo suubid inta ka socota dhibaatada tan wal yaridiyo la xisaabtan je ala sama tarba marikan aragaas inta la xisaabtamay barnaamij walkii la xisaabtan doon insha Allah ilaa idin shay walkii la xisaabtamay wala al suubidi wal nisku heraawma maylana riga inta gacan ka siiyay oo warqado qoray oo daaw qoray ogna kasaan wal gorde dadkii warqado qoray muqtalo hal qooday muqtalo say wala lahayn ogna yoona ma foqdaan isnaaf awlaadina aan foqdaan oo ilaahin iloogi saameyntii dhibaatadii ka dhalatay xasuuqii ka dhacay Baydhabo waxa ay sababtay in la qabto doorasho ahayd hal loogu shubo oo ay qaadaceen beesha caalamka xisbiyada siyaasadeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed maamulka arimiya 2 kiiloomitir oo ciidamo Itoobiyaan ay gaashaan u yihiin ayaa unkamay balse isku day fashilmay iyo hadallo aan dhaafsiisaneen afka ayuu lafta gareen kula hadlay wali fadaanay walaalayaalow walaagi dhii may dhiin hata mataale wali fadaanay walaagi dhii xalin kullisho xalin helal la xalay kan ani mas'uuliyadaas isla qaadan ani odayaalka iyo siyaasiyiinta iyo dawladdiba la soo dareer walaagi dhan xalsho la deeri waana ku wada hadalay wal deeri doona insha Allah هو نجت شاقي أرنتيس انصر مان أني أضيالك لبضان واساك الروجين ركلين الروجين دولة الرسمية كل هذا اللي كسر يلا هذا اللي دوميها برلمان كفدرال كلا هذا اللي مدحوينها هذا اللي سر رسمية كل هذا اللي أرنتاس ميل فيلين مرة توانا لما يعني إن شاء الله أنو بهدورنا ولاسنا ununi ogi ku jiifadaasan wala isin dareemahay tan unuba dareemahayn haddii aan ka shaqeyn waayo siideesmada Sheekh Mukhtaar Roobow kursiga aan ku fadhiyo micna ma yeelanayo waa hadal beer la xawsi ahaa oo mursal Baydhabo ka jeediyay ana waligabe ani Abdulaziz ba lama qofoodo deegaanku ha ku jeedaan oo arlaadon ka dhaladay arlaadon nasab sheegdaan wali ilata ani Abdulaziz oo sajarna bahdi Mukhtaar ha dhiiwayna kuraasta ka fadhiye walkalo aan wali aaminsanaha dhiigi usugaa waqtigaas inay jaralay Mukhtaar wali siin ballan qaaday waxdiye mehelin cadaalad mehelin xuquuqdii dastuurku uu siiyay ma ahayn ixtiraamkii iyo qadarintii uu mudnaa balankii ayaa looga baxay ehel qaraabo asxaab iyo caruurtiisa ayaa loo diiday inay booqdaan goob iyo meel aan la garan ayuu ku jiraa وليس حزبكيسا أمني عدالة كما يسنقوصا وهو قاميهودي أنا أقول لك جرد ديارتي سارناي مشرحي مدحوينها كونفور قلبين شيخ مختار روبو ينتكو دولني أفرتي باللي أكتوبر لما كنتم إيه سيد مالين خميسة وهايتي شانتي باللي ورقدنا نوضب الدري مدي كوحدة مدعتويدن في الليدة فرماجي خيرو قاميايان يون هايسد وايان شعب وينه أو سلاب سميهن كبهي إنيو تاجران هجامياشو شيخ مختار روبو يدا كنا حين مركز ورقة ضب الدرنا ما إرناها مهسورو مكارا ولا دراري ولي ودني إنه كان بين كانوا ودني دت كانوا والورصداني ميل الرئيس مركز جنبه ولسوا بينا إني أو مركزتي يدبن دكان حلقي دورشة القبضة فاضي يدبن دكنا سوبيا إلى مركز إنك دمبويتي يوم أنا أكسدان إذا ما إثيوبيانه
amisom ya hooseedaya yoba mandate ning haysana iyo may le raayisa may afduubenaha farmaajo amari iyo sheekh mukhtaar afduubeen dad badan dhamaayeen dadka cadaaladdan baahan markaa sheekh mukhtaar leh ma tuman iyo 5 qof oo bilaan imiga leh iyo meelkidi oo inshagada dad oo yoga fikirsho muujiyayaan may la raayisa si constitutionally oo dastuursho ambanaay fikirsho muujiyayaan iyo la dili dadka marka sheekh mukhtaar roobo oo hogaamiyaagin iyo inti lidii inti ka dhaawacanti inti ka hanta beeli iyo noo hata teegnaba cadaalad aan baaqno su'aasha isweydiinta badan waxa ay tahay mareer koonfur galbeed ayay filla Soomaaliya isku xasuuqday oo qoorta isku gelisay mise Kheyre iyo Farmaajo ayaa qowl xiro lahayn oo ku jira kaambeenka doorashada 2021 Cabdifataax Geesi ayaa yiri waxaan ku noolnahay duni cadaaladda iyo sharciga dastuurka loo rogo sidii la doono wal go'aan oo un arday ku wadna dawladii unu ku tirsanayna ma jarra bini'aadanka xeera ka dhagame dastuura ka dhagame aqli ka dhagame diinga ka dhagame ogdin wala dal kun ku dhii deegaan kun ku dhii dadna noola la dili dadna noola la afduubi dadna noola la dhaawaci meel kitaab quraanka ku yaalona male dastuurkii usulka dooradin meel ka taala male walaagaas oo dhan Farmaajo ya akhri adduun la warsay